السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. waxaan doonayaa inaan maanta idinla wadaago mawaadiic yar oo ku saabsan ramadaanka iyo caafimaadka. Faa'iidooyinka bisha Ramadaan maaha kula soo koobi karo, laakiin waan taabanaya. Tusaale ahaan, qof la xanuunsan yahay dhiigkar haddii uu qaato raashinka cusbada ku baahan tahay, uu xanuunsan yahay dhiigkarka ayaa ku soo darsanaya. Hadda waxaas ma jiraan. Qof qaba sonkor haddii uu qaato raashinka carbohydrate ku badan yahay iyo sonkorta, uu xanuunsadaa sonkorta ku kacda. qof qaba cholesterol haddii uu qaato raashin dufan ku badan yahay sidoo kale san uu ku xumaadaa. dhanka caloosha iyana ma jiraan raashinka tira badnay ee lagu shubayay ee laga qaadaya daaca qurunka iyo calool majiirka iyo shubanka iyo laabdilaac hadda ma jiraan. waxaad moodaa in la gaaray xilligii la isku shaandhay lahaa jirka oo jirku xataa uu iska dili lahaa oo iska saari lahaa unugyada dhintay ee macnaha seliska ama unugyada dhintay ee jirka ka kooban. haddii aan ku hormaro caloosha oo la sheego inay tahay xarunta ugu weyn ee sababta cudurrada, marka wax dheefshiid kama jiraan, wax dhacaana lagu soo diyaa fara badanna ma jiraan. qofku markuu raashinka qaadanayo xilliyada caadiga aan soonayn, waxaa jira in dhacana la diyaarsho oo waqti raashinka cuni jirtay la soo diyo dhacaanadaas. haddii aan raashin qaadana markaas dhacaanada caloosha ugu dhacaan dhaawacna ku geystaan. dhacaanada wax lagu shiido ee caloosha lagu soo diyo waxaa lagu soo diyaa 3 waji badankood: in raashinka aad aragto, in raashinka aad uriso, in raashinka caloosha uu gaaro. haddana waxaas oo dhan waa ka badbaadaysaa ma jiraan. maadaama aysan jirin wax dheefshiid hadda oo aan raashin la cunaynin, caloosha waxay ka badbaadaysaa in dhacaan lagu daayo. sababtaa waqti isbalansiya oo la soo diyaha ma jirto ilaa waqtiga loo baahnaay maano afurka oo kale. inta kale waxba la soo diimaa, caloosha waxay ku jirtaa xaalad deganaana. marka digestive enzymeski caloosha ay soo deynaysa halkaas ka hakadeen, dhaawacna ku geysan lahaa. qodobka labaad waa kaadi macaanka iyo ramadaanka. waxaan ognahay in kaadi macaanku ku yimaado sonkorta dhiigga ku jirta oo ka badata xaddigii loogu talagalay. waxayna taasi ka imaan kartaa laba meel. sonkorta waxaan ognahay dhiigga markay soo gasho raashinkaada cunto lasoo buriyo sonkorta ka koobnay dhiigga lagu soo daadso waxaa xareeday maadada la yidhahdo insulin. waxayna kala geedaa murqaha iyo beerka iyo jirka qaybihiisa kale inta looga baahan yahay. mararka qaarkood waxaa dhacda in maadada insulinta guud ahaanba la waayo oo qanjirka pancreaska uu soo saarto. nooca koowaad ee kaadi macaanka waa. xaaladda labaad waa in ay insulinta joogto laakiin qofku inuu cayilinayo kale ama jirkiisa uu ka soo saaro resistance uusan qaadan insulintaas uusan u dhaganuglaan, taasina ay keento in insulintiisa kortii way ku dhagto aysan ku xareyn jirka. nooca koowaad ee insulinta guud ahaan la leeyahay dadka waxaa la siiyaa insulin baa la siiyaa bedelkeeda. hadda maadaama qofku uu raashin qaadan sokor badan oo keenaysa dhiigga ku jirta oo keenaysa in insulin la soo deeyo ma jirtaba. marka nooca koowaad ramadaanka iyo soonku wuxuu yahay daawo. tan labaad, nooca labaad oo yacni sonkortii insulintii ka subsatay u dhow nugleyn inay sonkortii ku xareedo murqaha iyo beerka iyo ayadana hadda ma jirto baahi keenaysa in insulintu qaabka ay u shaqeyso sababtoo jirka sonkor ma ku jirtaba. marka si guud nooca koowaad iyo nooca labaad wuxuu ramadaanku ama soonku u yahay caafimaad iyo dhakhtar Ilaahay noo soo diray ayuu si dabiici ugu yahay. qodobka saddexaad, dhiigkarka iyo ramadaanka. dhiigkarka waxaan ognahay waa sida caadiga waa xaalad cadaadiska dhiigga oo dhaafay xaddigii caadiga ah normalka loogu talagalay, ama ha ku yimaado ama ha ku yimaado waxyaaba kale oo keena. markasta oo dhiigkarka waxaa jira wax kaasha badanaa waxaa kaasha oo loo aanaya waxyaabaha qofka uu qaato raashin ama cabitaan wax noqdaan ama wax uu isticmaalo noqdaan. waxyaaba ugu badanaa keena waa maadada la yidhahdo sodium, waxyaaba ka kooban qofka uu qaato waana cusbada badanaa loo aanayo. cusbada waxay kamid tahay waxyaaba ugu badan dhiigkarka cashan qofka laga ilaasho laga waardiyo dhaqaatiirtu taada ay ka siiyaan. marka waxyaaba kale oo jiraan kicika sida sigaarka iyo wax noocaasa iyo laakiin waxa ugu badan waxaa waaye sodiumta ama cusbada. marka qofkii dhiigkarka qabay hadda faa'iido u tahay oo raashin waqtiyo badan ma qaadanayo, 2 mar camal qaadana suxuurtii iyo afurkii. ayadana waxaa la rabaa in laga taxadaro oo raashin cusbada ku yarta la siiyo loo diyaarsho, marka asigana faa'iido u tahay. dhanka cholesterolka iyadoo keeni karta cudurro fara badan. cholesterolka wuxuu ku dumeeyaa badan inuu cudurro badan keeno sida cudurrada ku dhaca wadnaha, coronary artery disease la yiraahdo kale. marka cholesterolka asigana dhiigfafanka jirku badnaa badan waa la iska yareeyaa, qofku iska yareey karaa. haddana hadda waa la restrict gari waa la joojiyo raashin badan ma qaadanaysid. haddii aad raashin qaadanaysid mararka qaarkood oo yani xilliyada suxuurtii afurka oo kale waxaa lagu darmeedana inaad qaato raashin aysan ku badnayn dufanka faraha badan, kaas markasta caafimaad darro. hadda xataa caafimaad qabto xataa dufanka faraha badan caafimaad darro keenaa. inta ayaan kusoo koobaa barnaamijkeennii ramadaanka iyo caafimaadka qaybtiisa koowaad oo maanta uga hadla inta ugu muhiimsaneyd oo dhanka caloosha iyo dhiigkarka iyo kaadi macaanka iyo noocaas cholesterolka iyo caafimaadka uu leeyahay ramadaanku. wixii su'aalo qabtaan insha Allah taala qaybta populationka waxaan soo dhigo doonaa Facebooka, halkaas linkiga ka raaca message inuu soo diro xogaa caafimaad
ama ka baarbaara xogaa caafimaad facebookiga su'aal iga soo weydiiya si dad badan oo asxaabta su'aal iga soo weydiiyaan waana mahadsantihiin subscribe-ta naga hilmaamay insha Allah tacaala channelku waa channelkiini ka qayb qaata inuu koro waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.